قبل كشرر ما أنت دبعتها كده عادي أما صدق نبى اللي قد لي صدق ذا النواب السكول من كدلنا وريد الجولات أما إنا عكتر غير كوجا تاسويا تين كهذا الناس اللي دانو سردو من كان ماشي اللي يقول له حالي وبرجي يا إلهي إنا عكتر غير كوجو intii uu meesha joogayna maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraysa oo maalin walba aad arkaysaan dhibaato uu reerkiisu sameeyo oo caynkaasa waxaan soo jeedinaynaa marka ugu horeysa horta dadku iyagaaba iska rafaadsan oo abaari iyo waxa lagu jira roob la'aan badan baa wadankii ka jirta inta faraha badan inay dadku isxakameeyaan tala guudna laga qaato waxa laga yeelayo dadku sidiisa banaanba hadayna waxan wuxuu marka ay dhacaan ama meesha aad joogtiyo waciga lagu joogiyo iyo waxa ka jira aadan ka tashanin ama aadan ku tala gelin mar walba waxay noqonaysaa wax iska soo noqnoqda iyo waxay noqonaysaa wax siyaabo qaldan isaga dhaca marka ugu horeysa waxaan uga digayaa odayaal baa jira cadaqaatayaal ah oo marka ay wax dhacaan soo yaaca oo kafanka iyo loo dhiibo waxay markaa cunayaan horta totally kuwaas inay iska ilaalinaan dadka deegaanka joogay inay kuwa iska ilaaliyaan inayna waxba arintan ay gacan ku yeelan isaga kuwaas iyo kuwa maamulka inoogu jiraaba midkoodna inaan la ku yeelan dadka deegaanka jooga ay waxaan ku dhacayaan caqaasha dhex joogta in aad ka tashataan waxa aad ka yeelaysaan in aad isxakameysaan ila ma iyo xad waqti ku haboon iyo xilli ku haboon si ku haboon iyo tala ku haboon idinka oo aan lahayn in aad wax falcelina aad sameysaan in aad ka digtoonataan marka ugu horeysa waa regionka iyo deegaanka oo dhan wax quseynaya waa regionka iyo deegaanka oo dhan wax sabab u noqonaya oo wax intii ina cagjar yimid soo kordhay ama yimiday ilaa inta uu yimid ilaa iyo maantana de maalinba meesha ay maraysay iyo marxaladda ay ku jirtay waynu arkaynay ama waynu daawanaynay dhacdooyin dhaca oo taariikhda ku jira ha jiraan dadka bini'aadmigiina dadka meel ku wada nool ee bini'aadmigiina waa lagama maarmaan in ay dhibaatooyin ka dhex dhacaan ama ay dhexdooda wax ka dhacdo laakiin waxaa lagama maarmaan ah ama wax ay meesha aan ka baxayn war waxaan dhacay qaab nooceeya baa loo xaliyay ama qaab nooceeya waxa dhacay gacanta lagu qabto bulshadu ay xaliso marka haddii mid isaga u shaqeeyo oo mushaarka qaata ama mid isaga u shaqeeyo oo guna qaata uu buddig ka noqdo qaabka uu u wajahayo iyo xaaladda sida ay noqonayso mas-uuliyaddeeda waxaan dhammaanayn bay noqonaysaa qofkan mushaar baaba la soo siiyo isagaaba soo darsaday ujeedada uu soo darsadana waxay tahay sidii kuwiina soo maray ina cabsharinta uu yimid 13 dhalinyaro baa jigjiga lagu laayay intaba qof maxkamad loo soo saaray iyo qofkii dilay loo soo qabtay midna ma jirto mid walba odayaal inaga ahunbaa inta cumaamada faraqa loogu soo dhiibo magtiisii iyo kafankiisii baa la yiraahdaa cidna yeena qeylin cidna yeena hadmi degmada araarsan regionkeedaas markii ugu horeysay rag lagu laayay marar fara badan oo kala rag lagu laayay iyadana taas oo kala dhacday dad noocaas oo kala unbaa iyagana inta la adeegsaday wixii iyo sida ay u dhacayeen iyo xaaladiiba kii dhintay unbaa dhintay oo halkii uu ka dhintay iyo gurigiisu unbuu ka maqan inaan cidna loo soo qabanin waxna la iskaga ogaanin cidna wax loo waxyeelay marka maalin walbaba haddii ay dhacdadu dee dhinacuun ka socoto ama ay xaaladdu dhinacuun ka raraato waxay noqonaysaa wax xalkeedu marnaba la gaadhay bas wadda lagu helay baad noqonaysaa marka maalin walbaba sida u dhacaysay iyo xaaladdu sida ay taagan tahay baad arkaysaa marka abaaro fara badan baa jira waqti ku haboon inaad arrintaa la sugtaan cid gooniya may ku dhicin deegaanka iyo degmada araarsan dadka degan dhibaatadan caawa geeridan idiin taalla waa idinka tacsiyeynaynaa maalin walbana waa looga fiicanyay bini'aadmigu inay tacsi ku jiraan
marka waxaa habboon war qof bili-aadmu ilaahay kaa dhigay inaad talo kala haato waxa dhacaya inaad ka tashato oo aad talo kala haato muwaafaqo inaad kala haato wax walba aragti iyo qaab aad u wajahaysaayoo kugu qorshaysan inay jiraan maalin walba waxa dhacaya intay kugu dhacaan uun inaad halkaa intaynu ka calaacallo aynu tacsi uga dirnaayey wax munaasaba ma waxaa dadku isku ogyahay hadduu ceeb keento canaan ma keento waxaana wax walbana wuxuu miisaankiisa iyo awooddiisa yeeshaa waa sida loo wajaho marka in sidan si ka bedelan loo wajaho ama nabad ama dee inay ya dadku ama nabad bay ku heshiiyaan ama colaad bay ku heshiiyaan laakiin sida habeenkii in laysu soo dhuunto sida dacwada in habeenkii laysu soo dhuunto wax la aqbali kara iyo wax la qaadan kara iyo wax macquul noqon karta iyo wax qancisa ma waxaan kaa dhammaanaynin waxaa ka habboon ama ka fiican inuu wuxuu kaa dhammaado ama geeriha kaagaga dhammaado ama nolol iyo karaamaha kaaga dhammaado warreedda la guuleed hadday nabad diideen warreedda la guuleed hadday aynu nabad ku joogna ay diideen waxaa isku halaynayaana ay buurtaa ninkaa fadhiyatay dhinaca sharatay waa dhibaataynteeda la agdeen waxaynu u eeganiyo waxaynu u joogno midna ma jirto marka dhinaca shar bulshada deegaanka oo dhan buu khatar ku yahay bulshada deegaanka oo dhan buu halis ku yahay bulshada deegaanka oo dhan buu wuxuu ku yahay masiibo ilaahay u soo diray hadda masiibada ilaahay inoo soo diray haddii aynaan iska qaban cid inaga qaban mayso hadda waad ogeedeenoo cabdi ilay dhibaatadu mar dusha kama soo dhacdo way bilaabantaa dhibaatadu dabeedna ilamaa iyo waxay gaadhaa marxalad aan waxba laga qaban karin wax walibana waxay ku fiican yihiin bilowga ay bilaabanayaan aragtideeda aad yeelato in halkaa ay taagan tahay lagu qabto in ay halkaa ay taagan tahay aad kaga hortagto laakiin maalin walba haddii aad tidhaahdo way ka soo raynaysaa waar kama soo raynayso indhaheeda ma lehe way ka sii daraysaa inta aynan meel aan waxba laga qaban karin gaadhin inta aynan marxalad aynan cidina cid waxba ka qaban karin gaadhin meesha lagu qaban karayaa boos lagu qaban karayo halka uu ina cagshar maanta joogo haddii aan ku qaban weyno doraad bay ahayd inta uu dad diray oo guddi uu sameeyey degaankaba aan aqoon uu yidhi guddigii waxay soo xukuntay guura qorshahan ina cagshar uu degmada araarsi iyo degaankeeda ka leeyahayna mid dhammaanaya ma ilamaa iyo indha runa laystuso ma dhammaanayo 100 option buu qaatay 10 option oo uu soo qaatay ina cagshar baa fashilmay maantana waxay taagantay waxbad bay taagantay bas markii waan arkaynay de marka uu yiraahdo reerkaygan annagoo arkayna oo nagama caqli badna nagama indha badna meel walba indhiyo dhagaan ku leenay annagoo arkayna inuu habeenna madow intuu leydka u damiyay isaga oo aan 4 bilood joogin uu hubkii yaalay xerada ciidankeena booliska rartay oo loogu qarinayay dawladdii dhacday iyo wixii tagay si aan xisaabta kala wareegeeda uu ka sii gaarsiinay oo aynu ognahay oo aynu garanaynay oo aynu la soconay ba haddana waxay dadku ka doorbidayeen waxbaa isbedelaya oo ilaahay dee malaha faraj kaluu furayaa iyo khayr buu ilaahay iyo kanuu ilaahay wax garansiinay ina cagshar ilaahay caqli wax garansiiye ma laha ina cagshar caqli wax garta ma laha ina cagshar waa nin xanuunsanaya oo cilladaysan oo cuqdadaysan qofkuna hadduu cuqdadaysan yahay hogaamiye ummadeed ma noqon karayo daraad waad arkaysay nairobi wuxuu ka lahaa waxyaabaha uu ku shaqaynayo waa idinka arkaya degaankii soomaalida oo haraad loogu dhimanayo oo baahi loogu dhimanayo oo qoloji ay joogto 300,000 oo Soomaaliya diri dhaba ay barakacayaal ku yihiin maalin walba hantidoodii iyo dhaqaalahoodii iyo lacagtoodii wuxuu u siinayaa qoomiyadaha kale ee Itoobiya marka dadku haddii aynan waxa ay arkayaan
ay xaqa u leeyihiin ay xuquuqda u leeyihiin ayna ka falcelinin cidda ay doonayaan markaas maalin walba dhibaatadu markaa way joogaysa xabashigu 300 milyan sii cufar oo xabadi ka socoto gobolka city oo maalin walba la leenayo aynu arkayna 5 milyan sii xabashigu haddana 10 milyan oo kale ugu celiyay tikraabu shalay 40 milyan siinay gambeelu siinay sidaamu 40 kun oo kale siinay kii hore ayuu dhaama waa laga yaabaa inuu dhaamo kii hore laakiin kii hore waxa uu ku dhaamay iyo aragtida uu ku dhaamaa isweydiin mudan iyaduna